Assalaamu calaykum wayna salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan. Salaan kadib maanta waxaan doonayaa in aan soo bandhigo saad ku tasbiixsan lahayd ama ugu wardin lahayd taleefankaaga adoon isticmaalin wax tusbax ama waxyaalaha kale oo lagu tasbiixsado laakiin si isticmaalaya taleefankaaga kaliya. Haddaba waxay isweydiinaysaa sidee taleefankayga ugu isticmaalayaa ama su'aalo la mid ah. Dan kuu soo koobo casharkan aan gaabiyo waxaa jira application aad iyo aad u muhiim ah kaasoo kuu suuragelinaya inaad ku tasbiixsatid waxaana application-ka ka heli kartaa Play Store-ka meel kasta wax laga soo download gareysto. Haddaba application-ka kuu suuragelinaya waxaa weeye application-kan waxaa la dhahaa Real Tasbiix baa la dhahaa. Haddaba dan gudaha usoo galno application-ka saanu kuugu soo furmayaa. Haddaba waa kan application-kii meeshana baa ku wardinaysa halkan koonta ay ku qoran tahay waa e-tiri weeye. Waxa ku wardinaysid buu kuu tirinayaa saas aa ugu wardinaysaa. Marka hartiin iska tirtirtid meesha aad reset ku qoran tahay ku dhufanaysaa saas iskaga tirtiraysaa. Hadday habeen tahay iftiin rabtid halka lid ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. Haddii yacni markaad habeenkii joogto meel aan iftiin lahayn wuu ku tusaya macnaheedu intay wax kuu marayaan. Sidoo kale laguma wardiyo kaliya waxa rabtid baa ku tirsan kadhaa. Xaggan waa kalaro oo ka rabtid baa ka dhigan kadhaa mid aad u qurux badan baa rabtid ka dhigan kadhaa. Halkan waa on oo waxa weeye codka iga xir weeye. Hadda saada dhahno off ka dhigno waxba lagama maqlayo. Laakiin saada on ka dhigno waka uu qaylinaya. Halkan waa reset-kii aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan rajeynayaa inaad ku tasbiixsan doontaan markaad suuqa iyo meelaha maraysaan inaan wadan tusbax iyo waxa ayna wadan waa adigu waa tusbixii oo la soo fududeeyay weeye hab fudud lagu soo bandhigay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Fadlan haddaadan ku soo biirin channel-ka Bagaag Production fadlan ku soo biir adoo mahadsan. Aad ayay u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.